cadaaladda aniga ra'iisul wasaare ahaan ama ka shakhsi ahaan waxay ii tahay ahmiyadda koowaad markaan runta idiin sheego. waa tiirka oo aasaaska ii ah dowladnimada, waa tiirka aasaaska ii ahaa barnaamijkii xukuumadda ee aan horgeeyey baarlamaanka. haddaan cadaalad la helin waddankan meel uu gaarayo ma lahan. waa garan karaa caqabadaha iyo dhibka iyo duruufaha aad ku soo shaqayseen ee cadaaladda waa idinkaga garaabayaa. waqtiga yar oo aan haysanno aniga iyo tiimka wasiirada ah waa ka xunnahay waqti yar aan haysanaa, laakiin haddaan waqti fiican idiin heli lahayn aniga halkaan xafiis ka furan lahaa si aan idinkula joogo oo aan idiin dhegeysto, shacabkana aan u dhegeysto. baahiyadiina aadan ayaan uga warhayaa. waa garan karaa waagii dhallinyarada ahaa gobolka banaadir oo aan haddaan joogno maxkamadihiisa u lahaa aad ayaan u shaqayn jireen, wax kasta waa isku toosnaayeen. laakiin hadda waqtiga iyo dhibaatooyinka iyo duruufaha adduunka isbedelay iyo dhaqaalaha iyo dagaalada aan ka soo baxnay ee dalkeenna aafooyinkii nagu reebeen waa garan karnaa. waa inaad taas u dulqaadanaa, waana waxa aan waddankan u nimid. way naga go-an tahay dadkeennaan soo noqday ama dalka joogo inaan si cadaalad ah iyo hufnaan iyo inaan contribution waddankan gelino. marka aniga roobla ahaan waa iga go-an tahay cadaaladda inaan muhiimadda siiyo. waa idinla shaqaynayaa, waa idin soo dhaweynayaa. waxaan kaloo halkaan rabaa inaan kaga dardaarmo, walaalkay wuu sheegay 50 qofood oo noo yimaado 25 waa eedeysana, 25na waa maxaa la dhahaa dhibane. waa runtiis waay, laakiin haddana magaaladii iyo dalkii waa cabanayaa. far baa laydinku soo fiiqayaa, cadaalad daraa la tirsanayaa, maxaa la dhahaa in jidka loo taagan yahay oo kiisaskooda ama faylashooda aan la qabanin haddaysan la soo xiriirin ama sida ay rabaan garsoorka tiimka markaa ka hortegaya ama soo dhaweynaya aysan ula dhaqmin. waxay sheegaan inay ku dulman yihiin halkaa. iyagana waa dhegaysanay, waana dhegaysan doonaa. idinkana iyagaa ka tirsan tihiin, iyagaa matashiin. maahan inaad ka didaan, maahan maxaa la dhahaa inaad si kale u aragtaan. adduunkan kama dhammaanayso cabasho iyo eed. intaan noolnahay, intaan ka dhimanayno ilaa aakhiri laga gaarayo waxay way soconayaan. waxaa loo baahan yahay wanaajin iyo ka warhayn. shacabkan xaqiiqda markaa idin sheego iyagana waa dhiban yihiin. ya haddii 25kaas eeday oo wax soo eedeya aad dhehaysiin waa eedeysanayaasha, waxaa jirto qaar saxan oga jiraan. waa soo ognahay dhammaanteen. suuqa waa la xiriiraa, teleefoonadeeda weli aniga ma dansano, waa layla soo xiriiraa. saan hore idinkugu sheegay, haddayna u sheegay galaalayaha waa in cabashada wax laga qabtaa. dadkan waa dadkeenni, meelay aadaan ma lahan, meelay ku cawdaan ma lahan, cid u maqan ma lahan. waxay ay sugayaan waa garsoorka iyo cadaaladda. marka waa in sida ugu horeysa wax looga qabtaa. anigana halkan waa usoo badnaanaya maadaama aan uu yahay cadaaladda tiirka koowaad oon ahmiyadda siinayo. garab istaagaya waa ogahay. ustaad saalax waa sheegay bajetka aan ugu talagalna wuu yaraa, wuu garan karaa. wasiirka aad ugu dooday, waa doodii ugu badnaa oo laga bixiyo miisaaniyaddan isaga soo jeediyey. anigana garabaan ku siiyey xaqiiqdii, laakiin duruufahan haysto waa ka warhaysaan dhammaanteen. duruufo adagaa waddan ku jiro, duruufo adagaan waddankan kaga shaqaynaynaa dhammaanteen, ninka qofka ugu sarreeya ilaa qofka ugu hooseeyo. marka idinka waxaa laydinka rabaa waajibaadka idin saaran inaad gudataan, ummaddaana aw cadaalad fashaan. cadaaladaan dhammaanteenna wada deeqdo. aniga maanta meeshaan ugu sarreysa haddaan joogo berri waa imaanaya dadka oo waxaan ka mid noqonayaa bulshada qaybaheeda hoose. berri waa idiin imaanaya. marka haddaanan maanta waddadii aan cadaaladdaas ku heli lahaa aan hadda samaynin, anigana berri dulmanaan noqonayaa. idinkana sidoo kale qofna ma qorin inuu maanta meesha wada joogtaan u wada joogo. waxaan waa darajo ilaahay, bosiishanaa wada joogtaan, kaalimaa wada joogtaan. berri meesha aad joogtaan meel ka hooseysa tegi karnaa ama bulshadaan u noqon karnaa. waxa aan beerano ayaan berri helaynaa. waxaad maanta samaysaan hadday xun yihiin inaad idinkana berri wax fiican helaysaan, ha ku talagelina. waxaan waxaa waa ilaaha bixiyo milkiyaddan iyo darajadan. inaan shacabkaas sida u danqanayaan uga danqano waa muhiim waay. shacabka ha loo naxo walaalayaal, ilaahay ka cabsado. mas-uuliyiintiaad tihiin, eed qaadayaalaad tihiin. nin mas-uul qaada waa nin eed qaad. wax kastoo aad tirahdid maxaa la dhaha waa saxsanahay ama waa nalaga gardaran yahay, mar kastoo bulshada way saxan tahay. taas horta xisaabta ku dara. ciddaa meeshaan u fadhina maahan caruurtiinni, maahan reerihiinna, maahan eheladiinna. shacabka soomaalida halkan u fadhinaa inaan qaadno waaye mas-uuliyadda shacabka soomaaliyeed ay naga filanayaan, oo ah inay helaan cadaalad sax ah ku salaysan hufnaan iyo is-aaminaad.